soo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale. waa maqalkii afraad kulanti wacan oo wanaagsan. abwaan axmed saleebaan bidde iyo qisadii jacaylka ee 30 sano. hordhac. inantii uu dhallinyarnimadiisa jeclaa oo ayeeyo ah ayuu nasiibku dib u kulmiyey, wuuna guursaday. abwaan axmed saleebaan bidde iyo amran leexo in ka badan 22 sano ayay isjeclaayeen, kadibna way iscalfadeen ilaa maanta oo ay in ka badan 30 sannadood isqabaan. waa lamaane isjecel. abwaan bidde run ahaan waa badweyn, wuxuuna leeyahay fan iyo taariikh hodan ah iyo sheekooyin nololeed oo kala jaadada ah. haddaba qoraallo kale ayaynu kaga faalloon doonaa abwaan bidde nolol iyo fanba, laakiin warbixintani waxay ku eg tahay sheeko keli ah. leexo waa qiso jacayl oo taariikhda iyo fanka axmed saleebaan bidde waax ka ah. waa kuma axmed saleebaan bidde? inuu halabuurka fanka soomaalida ugu magac dheer ku jiro kasakow, dhab ahaan wuxuu ku sifoobay ereyga abwaan. abwaan bidde waa maansayahan heesihiisa facba fac u gudbiyo oo ereyadiisa bulshadu ku halqabsato. waa cod sameeye la xameeyey tiro heesa ah oo ka dhex sheegan fanka. waa jilaa iyo maadeeye masraxa kaalin mudakar ah ku leh. waana mu'alif dhisay 45 riwaayadood oo badiba tisqaad ah. mar kale abwaan bidde waa mutacallin leh xirfado dhowr ah, dalmar afaf kala duwan ku hadla, kuna sifaysan fikir ilbaxa iyo anshax koran. abwaan bidde fankiisa waxaa gundhig u ah jaad walba oo halabuurkiisa ahna ku mariiman dhaqanka iyo waayaha Soomaalida. si guudna waxaa fankiisa laga dhex dheehanayaa duruufaha dunida. haddaba axmed saleebaan bidde maxamed, sida uu ku xusay waraysi ay laanta af Soomaaliga ee BBC la yeelatay Hargeysa, ayuu ku dhashay 1943. dugsigiisii booliska ee Madeira, Somaliland ayuu tacliintiisa ku qaatay. iskuulka kadib farsamada korontada ayuu ka bartay warshadii leydhka ee Hargeysa. xirfadan buuna gobollo iyo goobo kala gedisan kaga shaqeeyay fanka ka hor, sida uu ku sheegay barnaamijka madasha halabuurka ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. axmed wuxuu ka dhashay qoys suugaanyahan ah dhanka aabbaha iyo dhinaca hooyadaba, sidaas darteed hal abuurnimadiisa waxaa loo tiirin karaa hidaraac iyo hibo dhalan ah, sida uu ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka Universal. abwaan bidde sida uu ku xusay waraysi uu telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland la yeeshay intii uu dugsiga ku jiray, wuxuu sameyn jiray oo iskuulka ku bandhigi jiray riwaayado gaagaaban oo maaweelo caruureed ah. taa kadib 1962 ayuu fankiisu masrax halabsaday oo hal abuurkiisu fagaaraha dadweynaha yimi, dal iyo dibadba. ilaa maantana badweynta fanka ayuu ku dhex jiraa, sida laga akhrisan karo wax soo saarka iyo dhaqdhaqaaqa faneed ee uu ilaa waqtigan u dabran yahay. riwaayadihiisa waxaynu ka xusi karnaa alla aamin ma iisho, jeel iyo jacayl, dal wanaaje qurbow iyo kuwo kale. heesihiisana waxaynu ka magac dhabi karnaa sida geed caleenlo, geeri doontee maanta aan go'o, haddii aanan dhulkaygow waa laysu soo noqon, si yar ma u shushubateen, iyo qaar kale. abwaan bidde suugaantiisu Soomaalida ka sokow laamaha kala duwan ee nolosha iyo waayaha dunida ayay wax ka taabanaysaa. si gaar ahse waxay ku astaysan tahay dhaqan iyo jacayl. abwaanku haatan wuxuu degan yahay Hargeysa. jacaylkii abwaan bidde. axmed saleebaan bidde ma aha nin jacaylka ku cayaara, waxaa yidhi abwaan aadan tarabi. fanka casriga ah ee Soomaalida waxaa ku taariikhaysan sheekooyin jacayl ah oo ku saabsan nolosha hal abuuro iyo hooballo caan ah, sida jacaylkii Ismaaciil Cagaf, kii Cali Sugulle, Cabdi Iidaan, Xuseen Aw Faarax, Sulub Cumar, Khadra Daahir iyo kuwo kale. haddaba qisada jacaylka ee abwaan axmed saleebaan bidde oo ah taaynu maqalkeenan ku faalaynayno waxaa lagu tiriyaa sheekooyinka ugu xiisaha badan ee ku aroora cishqiga fanaaniinta.
Axmed Salmaan Bide sida uu marar kala duwan warbaahinta ka qiray, gabadh bay isjeclaadeen, guurna ku heshiiyeen tabta dhalinyaradii dhigiisa ahayd. hase ahaatee calaf baa ka adeegay oo inantii way iswaayeen. inanta waxay reerkoodii siiyeen oo ay guursatay nin korneyl ah, kaas oo Axmed ka jeebroona. Abwaan Bide iyo inanta wax khilaaf ah oo la sheegaa uma dhaxayn, laakiin qadar baa kala kaxeeyey. haddii laga tegi waayana maalmahaas inanta laga guursanayay, Axmed wuxuu ku shuqlanaa qabanqaabada arooska saaxiibkii Maxamed Aadan Dacar. taas buuna jacaylkiisa kaga yar mashquulay, sida uu abwaanku ku xusay barnaamijka Xog Waran ee ay isaga iyo fanaanad Hibo Nuura khadka internetka wada jir uga tabiyeen. sidaas oo kale warbixin uu Abwaan Bide ka sameeyay suxufi Cumar Serbiya ayuu Abwaan Bide ku xusay in isaga iyo inanta uu calaf kala geeyay. calaf baanu isku weynay, isa seeg kale ma ay ahayn, ayuu yiri Abwaan Bide. inantii uu jeclaa haba laga guursaday way ka fogaatay oo nuurigeedaba wuu waayay, sida uu ku xusay waraysi uu telefishinka Goobjoog ka qabtay. inantii Hargeysa way ka guurtay oo waxay degtay Goreya Cawl, gobolka Awdal. ninka korneylka ah ee ay isguursadeen baa taliska Goreya Cawl ka tirsanaa. sidaas darteed Axmed jacayl baa ku kaliyeystay, rajo ayuuse qabay. labada iswaayaa dhibaato way leeyihiin, laakiin way isu samraan, ayuu yiri Abwaan Bide. heesta leexo. leexadu waa dabayl. haddaba sida uu ku xusay barnaamijka Madasha Hal-abuurka ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Abwaan Bide maalmihii uu heestan xuriyey, leexo jacayl baa sidatay. gabadhii uu jeclaa baa laga guursaday, leexo jacayl baa ii sidatay, ayuu yiri Abwaan Bide kolka ay Abwaan Bide leexada jacayl ku sidatay. hees ka mid ah tobanaanka heesood ee uu dareemadiisa ku cabirayay ayaa ku meel martay magaca leexo. sidaas oo kale inantii uu jeclaa ee uu heesta u tiriyey oo magaceeda rasmiga ah la dhaho Amran Ismaaciil Xuseen, iyadana waxaa lagu naanaysay leexo. haddaba kolka suugaanta Abwaan Axmed Salmaan Bide laga hadlayo waxaa la odhan karaa magacan leexo. marka koowaad waa qiso, waa xaalad jacayl oo Abwaan Bide maray. kolka labaad waa hees, jeerka saddexaadna waa gabadh. sidee bay ku timi heesta leexo? Abwaan Bide oo caways guriga ku qaylaya ayna la fadhiyaan Abwaan Ciise Warsame Dhancade iyo Hoobal Cabdalle Maxamed Sagsaag ayaa looga yeedhay guri aan ka fogeyn kii ilmo Salmaan Bide ee ay ku barjaynayeen. wuu kacay oo gurigii tagay, wuxuuna kula kulmay inantii uu jeclaa ee laga guursaday oo ninkii qabay dudmo kaga timi. inantii uu jeclaa waxay ku wargelisay in ay ninkeedii iskhilaafeen, in ay ku noqotona aanay rabin, sidaas darteed ay Axmed Salmaan Bide guurkiisa diyaar u tahay. Abwaan Bide wuu ka diiday arrintaa, wuuna fasaxay. Abwaan Bide sida uu marar kala duwan xusay, kolkan uu inantii uu jeclaa oo u heelan fasaxayay, isaga jacaylkeedii kama guurin ee caashaqiisu tabtiisii hore iyo si ka daran buu ahaa. laakiin wuxuu ka dhowrsanayay oo diidanaa in uu nin iyo gabadh aan isfurin ka dhex shaqeeyo oo qoys dhisan dumintiisa ka qayb qaato. taa awgeed isagoo inanta jecel ayuu haddana ka gows adeegay oo damiciisii shidnaa xakameeyey. adiga oo madax bannaan haddii aad ii timaado anigu ka eryi maayo, laakiin imika reer dhisan haddii aynu duminno innaga keenu dhisnaan maayo, ayuu inantii ku yidhi Abwaan Bide. sidaas bayna isku nabadgeliyeen. waxaa lagu doodaa Abwaan Bide in uu markan qaatay go'aan gobonimo iyo danaysi la'aan astaan u ah. haddaba Abwaan Bide aqalkii inantu joogtay markii uu ka baxay ayuu ladh ku kacay. dareen hibasho u eg baa jiitay oo ka hadliyey, dabadeed jawaab digasho u eg buu soo dhuftay. wuxuuna hambabaray oo is arkay isaga oo socodka ku heesaya oo erayadan marinaya: inagoo lamaana iyo laba naf qaybsi leh, tala geed ku laashee, waa adigan sa liitee leexadu ku sidatee hadba laan cuskanaye, maxaa luray naftaadii.
abwaan bidde oo meerisyadaas subcinaya ayaa u yimi dhancadde iyo sagsaag saaxiibadiisii ay kolka hore wada fadhiyeen. dabadeed abwaan bidde iyo cabdalle sagsaag baa isla qabqabtay ereyadii laxamiintoodii. halkaasna waxaa ka dhalatay heesta leexo. nuxurka heesta leexo dad baa ujeeddo siyaasadeed u fasirtay, laakiin abbaarta dhabta ah ee heestu waa hinaase jacayl ee siyaasad shuqul kuma laha, sida uu abwaan bidde ku xusay waraysi ay laanta af soomaaliga ee BBC ka qabatay. heestu waa hinaase ee siyaasad shaqo kuma laha, ayuu yidhi abwaan bidde. fanaanad hibo nuura iyo heesta leexo. hibo maxamed hudoon hibo nuura oo maanta ah fanaanad magac iyo maamuus fanka ku dhex leh. heesta leexo ka hor aad looma aqoon, hees keli ah baana uga horreysay leexo. sidaas daraaddeed abwaan bidde aqoon uma lahayn hibo maxamed, wuxuuna doonayay heesta leexo inuu u dhiibo hablihii beriga calankoodu taagnaa ee hibo fanka uga horreeyey, hargeysana ku sugnaa sida guduuda carwo iyo saynab baxsan. laakiin hibo ayaa ku dhegtay heesta leexo kuna adkaysatay inay iyadu qaado. codsiga hibo kadib, baxsan iyo guduuda carwo ayaa abwaan bidde u soo jeediyey heesta in uu hibo u dhiibo, waxayna taa ku sababeeyeen 1 hibo fanka way ku cusub tahay ee heestan ha ku soo baxdo. 2 waa fanaanad heesta hirgelin karta oo aan kolnaba codkeeda lagu khasaaray. abwaan bidde taladaas wuu ku qancay, sidaas bay hibo ku qaaday heesta leexo. natiijadiina waxay noqotay tabtii baxsan iyo guduuda hilaadiyeen. si xilkasnimo leh ayay hibo uga soo dhalaashay heestii. waqti yar kadibna dhagaha dadweynaha ayay qabsatay oo dalabkeeda ayaa kala go'i waayay. adiga islumiyo isuloogay cadowgoo libintaadi siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye. waxaa la odhan karaa hibo heesta leexo way ku soo baxday. dhanka kale heesta leexo qudheedana hibo way soo saartay oo luuqdeeda ayaa taabagelisay. maalintaas ayayna fanaanad hibo iyo heesta leexo maqalka dadweynaha si wada jir ah u hanteen. abwaan bidde iyo hoobalad hibo nuura oo barnaamij qadka internetka ah ku kulmay ayaa isaga marag furay heestaas in ay sabab u ahayd inay hibo si degdeg ah u hesho aqoonsi fanaannimo iyo magac weyn. sidaas oo kale abwaan bidde iyo fanaanad hibo waxay isku waafaqeen in heestaasi ay fududaysay in hibo dalka Shiinaha bandhig faneed u tagto markii ay 2 bilood oo keli ah fanka ku jirtay. aniga oo 2 bilood fanka ku jiray ayaan China tagay. abwaanku inuu heesta igu aaminay waan uga mahad celinayaa, ayay tiri fanaanad hibo maxamed. hees xaalmarin ah. jawaabta heesta leexo. kolkii ay heesta leexo suuqa ka gashay kadib, amran ismaaciil xuseen leexo oo ah inantii uu abwaan bidde heesta leexo tiriyey ayaa ka cabatay heesta leexo. sida uu abwaan bidde ku xusay barnaamij uu telefishinka saab u qabtay, ummadda oo dhan baa i maqashay. meesha aan tagaba heestii leexo way daba socotaa ee xaal baan kaa rabaa, ayay ku tiri. xaalka ay ka doonaysaa geel iyo dahab ma aha ee waxay ka dalbatay hees lid ku ah tii hore ee leexo. abwaan bidde sida uu xusay wuu ku farxay in uu xaalka hees u bixiyo, waayo wuxuu ka warwarsanaa in xoolo la weydiiyo, laakiin heesaha iyo hal abuurku waxay ahaayeen hantidiisa keli ah ee uu hagar la'aan u hidin karo. waad fiican tahay baan ku idhi haddii aanad dahab, geel ama lacag weydiisan, ayuu yidhi abwaan bidde. haddaba inantii wuxuu xaalmarin u siiyey heesta uu maxamed axmed ku luqeeyey ee sida geed caleen iyo heesta uu xaalka u bixiyeyna waxaa erayadeeda ka mid ah: sida geed caleen iyo ubax guudka qariyeen oy gooni laamaha ay midibo geesteed hoobaan isgaadhiyo gunti midho ah leedahay, gabadh yahay kalgacal baad
goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa. geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenu goonilaaba aynidiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleeday. kolkaa iyo kadibba intii ay jacaylkiisa isa seeganaayeen, abwaanbidda xaaladihiisa jacayl heeso badan buu ka cabiray. waxaana laga xusi karaa ta uu Axmed Cali Cigaal ku luqeeyey ee fariinteedu sama filashada tahay: waa la isu soo noqon wixii nool adduunyada. guurkii abwaanbidde iyo marwaleexo. abwaanbidde sida uu ku sheegay waraysi uu siiyey Qaran News inanta kolkii la guursaday kadib wax xidhiidh ah lama samayn, waxaana xidhayay dhaqanka oo afan leh wuu ka gaabsanayay. haddaba muddo 22 sano ah kadib, gabadhii oo ayeeye ah sayigeediina uu 3 sannadood sii mootan yahay, ayay abwaanbidde qaxoonti ku kulmeen. way isguursadeen. abwaanbidde sababtii iswaayidooda wuxuu ku macneeyey calaf, sidoo kale sababta ishelidoodana wuxuu ku qeexay isla calaf. nasiib baanu isku weynay, markii dambana nasiib baanu isku helnay, ayuu yidhi abwaanbidde. calaf ilaahay baa isu kaaya keenay. sidaasoo kale abwaanbidde wuxuu qabaa calafku in uu daaho mooyaane ma baaqdo, calafku ha raagoe ma guuro, ayuu yidhi abwaanbidde. abwaan aadan tarabi oo ay abwaanbidde saaxiibnimo nusqarni ka badan dhaxayso ayaa tibaaxay abwaanbidde inantii uu jeclaa in uu la kulmay iyadoo ayeeye ah kadibna guursaday. abwaan tarabi oo ka hadlaya kulan abwaanbidde qudhiisu uu goobjoog ka ahaa oo Hargeysa lagu qabtay, kaas oo lagu falanqeynayay fanka iyo taariikhda abwaan Axmed Saleymaan Bidde, ayaa yidhi: Axmed Saleymaan Bidde waad ogtihiin isagoo aan dumar horeba u guursan oo dhalinyaro ah in uu gabadh jeclaaday oo ay ayeeye isku heleen oo imika qabo. abwaan tarabi ayaa abwaanbidde ku sifeeyey nin aan jacaylka ku ciyaarin, sadaacadu ah. abwaan Saleymaan Bidde dadka caashaqa ku ciyaara ma ah, ayuu yidhi abwaan tarabi. gabagabo kadib 22 sano jacaylkoodu waayaha u dabranaa, abwaan Axmed Saleymaan Bidde Maxamed iyo marwo Amran Ismaaciil Xuseen Leexo way is heleen. maantana waa lamaane iyo 2 naf qaybsi leh oo in ka badan 30 sannadood qoys ah. calafkooda ha raagoe ma guuro. waadiga seliite leexadu ku sidatee hadballaan cuskanaye. waadiga seliite leexadu ku sidatee hadballaan cuskanaye. libanteeda duunyada ruuxna laasan maaye, maxaa luray naftaadii